السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. soo dhawaada asxaabta sharafta leh. challenge-kii baynu ku soo jiray baruurta la iskaga ridayay, marka maanta waa maalintii labaad. marka insha Allah ku soo dhawaada videogan. hadda exercise-ka waan bilaabayaa. dodobadii waxbay noo tahay marka waan caruurtii ku noqdo mardhow. marka insha Allah soo dhawaada exercise-ka waynu bilaabanaynaa. la socdo insha Allah videoga. hadhowtana insha Allah cuntadayda waxa iga aan cunayaan la share gareynayaa. marka insha Allah daawasho wanaagsan. videogana insha Allah isku day in dhamaysataan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maaragtaan exercise-ka waan bilaabay, waan soconaya, waan lugaynayaa. marka 20 minute soo lugayo insha Allah baan insha Allah hadhow baan quraacanayaa. maan soo quraacan waxa la yidhi waxa fiican in la quraacdo inaan la quraacan exercise-ta ka hor. haddii adoo aan cunto cunin inaad quraacato aad exercise ka samayso baruurtu way fududahay la isaga ridaa la yidhi. marka waxaan doonayaa inoo gaajoonaya aan lugeeyo sidii baruurtii hore ee saarayd iga dhacdo oo aan cuntadii una aan cunay gubin. marka insha Allah waan soo lugaynayaa. hadhow insha Allah aynu isku soo noqonaynaa markaan soo dhamaysto insha Allah socodka. insha Allah waynoo hadhow asxaabta sharafta leh. quraacdeeda ma aragtaan quruxdeeda sida u sharaxan tahay. ku soo dhawaada quraacdeeda la qaybsanayaa. waxaan cunayaa boorash aan soo kariyey oo in yar oo strawberry dusha ka soo saaray. boorash waa waxa ugu fiican in la isku dhuubo, marka ha moogaanina insha Allah. waxaan kaloo halkan ku haystaa beed ama eeg, xabad eega waan soo karkariyey. eeg wuxuu ku fiican yahay karkarinta, marka la shiilo ma fiicna, marka ha moogaanina insha Allah. beedka aad buu ugu fiican yahay marka la isdhuubayo. waxa la yidhi wuxuu gubaa calorie-gu gubaa. waa waxa ugu fiican la isku dhuubo. protein-ku way u fiican tahay qof markuu isdhuubayo inuu cuno wax protein ah. marka halkan canabkii casaabaan ku haystaa iyo in yaroo strawberry ah. marka aniga iscasumay, idina insha Allah iscasuma, isdhuuba, caafimaadkiina ilaaliya. videoga waxaan ku talagalay inaan encouragement ku siiyo dadka doonaya inay isdhuubaan ama walaalaha doonaya caafimaadkooda bedelaan. marka insha Allah ka faa'iidaysta. hadhowtana insha Allah waxaan la qaybsan doonaa haddii Ilaahay yiraaho qadadayda insha Allah idinla qaybsan doonaa. marka waynoo qadada insha Allah. asxaabay lunch time qadadii baa la gaadhay. qadadaydu aad bay u fududahay, waa aragtaan. waxa weeye bakeeri yoogada ama caano dhanaan ka full fatka, kan caanahan dhanaan full fat. waxaan kaloo cunayaa waxa la yidhi yoogadkan laguma naaxo. marka qofku isdhuubaya aad buu ugu fiican yahay. calciumna weeye, lafahana ugu fiican yahay. waxaan kaloo cunayaa muus. waa aragtaan muuskaas. muusku energy buu siinayaa. milixdana wuxuu ka saaraa jidhka. waxaa ku jirta potassium, marka sodium ka saaraa bodiga. waxaan kaloo cunayaa tufaax, xabadda tufaaxa ah. tufaax maasha Allah. tufaaxu waa qudrad, marka waxba kuma naaxayo. vitamin waan ka helayaa iyo energy. waayo marka qofku cunto badan cunay waxa fiican inuu vitaminka badsado waxay ku jiraan. waxaan kaloo cabayaa green tea baan halka ku samaystay. waxa la green tea aad buu ugu fiican yahay marka qofku isdhuubayo. baruurtu gubaa. marka green tea-ga waxaan kaloo cabayaa biyaha halka yaala. biyahana chemical-ka iyo waxaas jirka ay ka maydhayaan. markaas waa ka qadadayda waa aragtaan. marka qofku qadada marka la cunayo waxa fiican in wax fudud cunto, waayo cuntada badan waa lagu luloodaa. marka waxa always fiican something light, wax fudud oo aanad ku luloonayn oo wax ku taraya, energy-na ku siinaya. marka waa taa qadadaydii. insha Allah waynoo cashadana wadana share garaynaa insha Allah. si fiican ula socda. videoyada waxaan ugu talagalay in encourage gareeyo walaalaha doonaya inay isdhuubaan, doonayana inay noloshooda bedelaan oo caafimaadkooda kor u qaadaan. marka waynoo cashada insha Allah.
soo dhawaada asxaabay, waa taa cashadaydii waa taa oo maalintii labaad baa dhammaatay. Challenge-kii maanta uu ku guuleystay. Cunto fiican baa samaysay, waa aragtaan qudrad isku jirta iyo salbuukadu aad bay caloosha ugu fiican tahay, lagumana naaxo. waa cunto aad u wanaagsan oo fudud oo caloosha u fiican, fiberka ku badan. waxaan kaloo cunayaa qudrad isku jirta, baradhadii macaaneyd, mushroomtu aad bay u fiican tahay, biyo badanna way leedahay oo way u fiican tahay jidhka. waxaan kaloo cunayaa galley, maaragtaan sweet corn, galleyda macaan. waxaan kaloo cunayaa in yaroo fruit aan dhinaca ka saaray oo strawberry aan dhinaca ka saaray. maasha Allah, waa cunto aad isugu dheelitiran oo u fiican. marka intaasaan idinla qaybsanayay. insha Allah videogu halkan uu ku eg yahay. insha Allah like saara videogan, subscribe saara hadday ku cusub tihiin. waxaan ula jeedaa inaan idinku encourage gareeyo cuntada caafimaadka u fiican. aydana challenge-kan igala qayb qaadataan. marka insha Allah khayr iyo nabad baan idin rajeynayaa. assalaamu calaykum.